soo dhawaada saaxiibayaal jaalayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena ciyaaraha oo aynu maanta diiradda ku saari doono ciyaartooyga weyn ee u ciyaara kooxda Manchester City iyo sidoo kale xulka qaranka Belgium ka Master Germany Duku waxaanu isla eegi doonaa meelaha uu daciif ku yahay Master Germany Duku ee ay tahay inuu isku horumariyo Germany Duku inkasta oo uu yahay ciyaartooy aad halabuur u leh sidoo kale xawaare sare leh sidoo kale gambiskiisu aad u fiican yahay waliba marka la joogo 1-on-1ka haddana waxa jira meel uu daciif ku yahay number 1 waxa uu daciif ku yahay Germany Duku go'aan qaadashada ama waxa loo yaqaan decision making mararka qaarkood waxa uu si degdeg ah u qaataa go'aamo aan sax ahayn sida inuu u gambiyo difaacyo badan halkii uu u dhiibi lahaa saaxiibadii kubadda tani waxa ay keentaa in fursad wanaagsan ay lumiyaan kooxdiisu number 2 dhameystirka fursadaha ama finishingka inkasta oo si fiican u abuuro fursado Duku wali ma ahan weeraryahan dhameystirkiisu yahay heer sare golosha uu dhaliyaa ma aha kuwa joogta ah marka la eego xawaaraha iyo boosaska uu gali karo number 3 difaaca iyo ku noqoshada booskiisa ku inta badan waxa uu xooga saaraa weerarka waxaana ku yar ka qayb qaadashada difaaca Guardiola waxa uu jecel yahay ciyaartooyda ka shaqeeya labada dhinacba attacking iyo defensive ama weerarka iyo difaaca number 4 Germany Duku ciyaaraha qaarkood waxa uu ciyaaraa si fiican laakiin waxa jira kulamo uu si aad u hooseeyo oo wax saameynaba lahayn si uu u noqdo ciyaaryahan heer sare ah waa inuu noqdaa mid joogteeya mar walba ciyaarihiisa afarta qodob iyo qodobo kale ayaa kuwa ugu saameynta badan ama meelaha uu ku liito Germany Duku ee loo baahan yahay inuu isku horumariyo